maanta waxaan ku hayaa kan day midkaan qofkan saas u hagaaji waa design waxaan waa design la hagaaji midkaan day designkan intaan u gadaya waxaasna waxa lagu dhex gadaya YouTube samarat ninkan design wuxuu gadaya oo wuxuu yiri tan waa la gadaa sold out maba taala lagu leeyahay tan 199 which is $200 tan $180 kan intaan la gadaa warkaysa ameynaya ay ka soo tag midkaan day waxa weey waxaan dhan ragga dadka hadda aan ku tusay waa meeshan ninkan wuxuu haystaa intaasoo waxa la uu haystaa 21.5 million subscribers intaasoo ka faa'iido asaga bas wax kale kama faa'iido wuxuu ka faa'iido waxyaalaha uu gadaa bas uu muhiimsan asaga badan dadka video-ga daawadaan uu muhiim badan oo ma waa mar kale ee Soomaali online money halkan aan kugu soo gudbinaa mar kasta qaabka ugu wanaagsan oo video oo lagu sameeyo video looga sameeyo YouTube lacag looga sameeyo adoon video sameeynin halkan waa Soomaali online money maanta waxaan idin hayaa ragga ugu caansan YouTube-ka iyo waxa YouTube ku sii dhax sameeyaan oo uga sii faa'iideystaan sidii lacagta oo dheeraad uga sameeyaan ayagoo haysta intaas million views iyo haddana kasii shaqo ku sii dhax qabsadaan ay ku sii dhax hagaajistaan YouTube-ka ninkan day intaas haysta waa 9.5 million haysta lacagna uu ka sii sameeynaya ninkan inaad taqaanina idin soo wada gadaal baan kaga sheegay ninka taqaanina la dheeraha sagana ninka aad arkaysid ninka xalada waa Mr Beast waa ninka YouTube caankay sida waa kan hadda almost arkaysa 50 million 57 waxa Mr Beast la yiraahdo waxa kale meeshan caanka nin Soomaali oo ku jira gadaal kaga sheegi doona meeshan qofkan asagana caan uu ka yahay wuxuuna gadgadaaba saga midkan wuxuu ka shaqeystaa ninka hadda arkay sii joodo wajigiisa waxa u fiiri iyo wajigan waa isleeyahay markaysa dharkan uu gadaa meeshan dharkan ku gadaa waa Shopify midkan waa collection Shopify weeye dharkan uu ka gadaa meeshan intaan iibiya dharkan waxaan iibshaa ka soo tag midkan kaleeyta waxa weeye inta 9.5 million oo isda asaga ninkan Islam la yiraahdaa waxa arkaysaday subscribers-kiisa iyo views-kiisa ismalaha subscribers-ka waa yarhiin views-kiisa badan which means waxa weeye ninkan mar walba wuxuu ka hadlayo waxa wax trendina oo markaas soconayo suuq kale YouTube dhaxdiis wuxuu qabtaa midda intaan u hagaajiyaa design-kan iyo hagaajiyaa smart 50 ilaa 30 dollars iyo ku hagaajiyaa tan sidoo kale qaaran ka tusana waxa meelaha lagu hagaajiyo very easy mar hadaad fahansanto waxa si loo hagaajiyo intaan u hagaajiyo arkaysa waxaan lacag ka sameeyaa waa trending oo kuma haddana waa hagaajiyaa okay aan tagna meesha la yiraahdo YouTube-ka dhaxdiisa YouTube-ka ninkaas oo iska leesan iyo ku sii dhaxgadaya waayo wuxuu ugu sii dhaxgadaa waxa weeye ninkan wuxuu hoos dhigayaa bas qaybta video-giisa iyo hoos dhigayaa tusaalahan hadda meeshan daa'imaadid waxa arkaysaa in ninkan uu meeshan qaybtan hoose oo link u yaalo arkaysaa waa merchant chat samar qaybtan link hoose u taala ninkan kaleeta halkaan ka iibsan kartaa dharkayga waa ninkan waa nin Soomaali asagana gadaalan ka tus doona insha Allah taala okay maxaa ku soo haray meeshan ninkan merchant asagana soo kaleeta halkaas asagana ka iibsanaya ninka asagana waxa weeye Saalim hadda ku tusayay asagana waa merchant si iibiya waayo arkaysaa wuxuu ku leeyahay visit Sakara news story waa kana meesha uu ku iibiyo kana copy iyo merchant waa shop meeshan uu ku leeyahay marka YouTube bas in lacag aad ka sameynaysa bas maahan adigoo YouTube-ka video soo gelina video hatta adiga aan leen sida hore meeshan aan nooga hadalnay oo aan ku soo gudbina meeshan mar walba aan ku wacdina dhahno war YouTube lacag badan baa laga sameyn karaa adigoo aan bas aan subscribe views-ka bas aan raasanayn waxyaalo kale intaan dadka haday qanciyaan waayo dadka wixii qanciyay gataana dadka haday qanciyaan way ka iibsanayaan dadka taas waa waxa uu warlaan way taas waxa la yiraahdaa hadda ninkan hadda waa ninka aan ku sheegay meeshan waa ninka Mr Beast oo caanka waaye waayo waxaan iibshaa sagana waxaan iibinayaa arkaysa amaana waa kan ninkan waa the same face waaye waxaan iibinayaa smart sagana waxaan iibinayaa members ahaan buu gadaa smart intaan waxaan meesha wuxuu ku leeyahay shop sagana waa shop uu ku leeyahay meeshan Forbes waa hawe meel wargeys oo weyn waaye Google ana waxa ninkan waa tagay laakiin scratch laga soo bilaabo wax walbana bilow way leeyihiin wax walbana meel baa laga soo bilaabay dhaxda looma soo dhaco haddii aan tagna meeshan ninka la yiraahdo nin YouTube-ka Soomaali caanka waa Darisla Cabdi ninkan waa Landera waa arkaysaa wasan hoos uu ku iibinaa dharkiisa dharkaasaan loo iibiyaa waayo dadka YouTube-da caanka ka dharkooda halkaan lagu iibiyaa dharka waa design garanaysaa bas magac iyo design u qoraysa waxyaalahan faanada qaabka u taale waxaan gudahan gadaal ka tus doona gudaheeda meel bay taala aad magac basad ku qori bas magacaan basad ku qori sida hadda ninkan hadda
waxyaalahan caadi u yaalaan wuu xirtay ninkan waa ka duwan, ninkan waa Shopify waa ka duwan yahay Teespring ma weekly waa Shopify merchant Teespring laakiinse waxa dhan meel bay iskugu imaadaan waayo ninkan dadka saday shaatiga soo xirtay isku sawiro oo micnaheedu yahay ninkan shaatigan waa Shopify waaye online shop uu leeyahay shaatiga uu isku sawiri karaa uu soo geli karaa soo design intuu soo sawiro kaas waa online shop caadi weeye oo online shop hadii aad garanayeen waa Shopify kulli waa hadii aad garanayeen waxyaalahaas comment aan ugu reebi kartaa anaka mar walba waxaan diyaar u nahay in wixii aan la garanaynin aan soo bandhigno meesha laga keenay meesha laga helo qaabka loo hagaajiyo wax dhamaalaba inaan soo bandhigno anaka diyaar u nahay okay qaabka marka loo hagaajiyo yaa isweydiin leh waayo wixii waa arkaysaa dadku way gadayaan hoos su'aalaad intaan of views leh ninka intaan sakaraas leh dadkan waa ka gadanayaan waxa weeye asagan uu keenaya hadii merchant ay meesha su'aalaad hadda meesha amal hadda midda waa merchant midda waa merchant weeye arkaysaa waa meeshan waa merchant waa sorry waa merchant oo laakiin Shopify ahaan loo hagaajiyay oo arkaysaa meesha calaamada Shopify meel saaran tahay marka waxyaalahan waa la hagaajiyaa design-kan waa la hagaajiyaa oo qaab loo hagaajiyay leedahay kulay hadii cid u baahan tahay adigan daawada hadii lacala u baahan tahay cashiraas qaabka loo hagaajiyo ama dareynaysid comment-iga hoos noogu reeb in cashiraas u baahan tahay annagana waxaan ka soo sameeynaa cashirada waayo comment kasta waan aqrinaa waxaan tixgelinaa daawashada kanaga cashirada waa tixgelinaa saymina mar walba aan ka soo sameeyno waxay codsadaan okay halkan hadii aad tagto meeshan ayadana waa Shopify arkaysaa kaadka meel uu saaran yahay kan waa Shopify laakiin waxaa ka duwan midkaan Shopify ma ahan waa Teespring waaye waxa weeye Teespring-da waxay u shaqeysaa Teespring waa kana hadii aad rabtid si design waa teespring.com t-shirt hoodies max qaabka loo design gareeyay iyo meelaha lagu design gareeyana waxaan ka soo wadaa kala video waan ka soo wadaa laakiin waxay ku xiran tahay codsiga maxaa la soo codsateen idinka oo aad dhahdeen qaabkaas aan noogala soo sameeyay anigana waxaan ballan qaadaynaa inaan isla kaas aad codsateen aan kaga soo sameeyno okay maxaa laga helaa qaabkiisa loo gadaa waxaa laga helaa horta markii aad video YouTube aad soo gelinaysid oo qaabka u soo hagaajinaysid waxa weeye subscribe lahow ama lahaan way subscribe-ka waxa weeye waxaan waqti ku imaadaan waa community inaad istaa ka horeyso wayna iska imaadaan mar walba waayo qof mar walba meel uma fadhiista ma jiro laakiin marka hore YouTube aad bilaawaysid aad bay u adag tahay in subscribers badan aad ku heshid hadda ninkan arkaysaa 2.5 milyan dheer kuma saarin balse waxaan waqti bay leedahay qaab kale waa jirta ayadana subscribers lagu helo oo maxaa lahayn oo ba helaysid laakiin qaabkaas waa qaab waxa weeye channel-kaada waxa qatar ku gali kara weeye hadii laakiin aad u baahantiin idinka waxa weeye waa 10 waqti soo beenaa channel goon inta abuurno oo waliba demonstration waa in ku siin karnaa in ku tusi karnaa annako process-ka sameeyeen waayo lacag lagu bixiyaa waxaas marka adiga hadda bilow tahay YouTube bilow tahay uma baahneed waxyaalahaas inaad maxal lacag ku bixiso uma baahneed waxa u baahan tahay bas inaad video soo diyaarisid video soo diyaarinaysid waa video horay aan kuugu sheegay oo aan ku yiri videoyadaas yaa ugu fiican waayo halka mar walba waxaan soo gelinaa videoyada qaabka loo soo geliyo iyo qaabka wax lacagta looga sameeyo video adiga aan leen hadda hadii aad daawato videogan aad daawato copy and pasting-ka aan soo gelinay maalin hore marka channel-kan soo gelinay hadda daawato videogan wuxuu ku tusayaa qaabka wax looga sameeyo lacagta waayo wuxuu ku tusayaa videoga qaabka ugu sahlan adigoo macnaha waxba aan sameeyno copy pasting ku sameynaysid bas copy pasting adigoo ku sameynaysid iyaad waxa ku daawanaysaa videogan okay hadii aad intaas fahantay aan isla fahanna qaabka loo sameeyo meeshan qaabka loo sameeyo waxay tahay waxa lagu soo sameeyaa meel go'an lagu sameeyaa halkan gudaheedana ayadana waa lagu hagaajin karaa meeshan gudaheedana waa lagu hagaajin karaa
Ooh.